Maalin ayaan aaday isbitaalka weyn. Markii aan galay isbitaalka, sariirta ku xigta qofkii joogay ayaan salaamay. Dareenkayga ayaa waxaa soo jiitay oday weyn oo gaaraya da'da 90aad. Waa i soo fiiriyey isagoo jaleecaya. Ilaahay ayaan ku dhaartay walaalayaal, indhahayga ma aysan arag jaleecidan oo kale. Kadib waan fiiriyey, waxay ahayd fiirin murugo leh. Waan aaday oo waan salaamay. Waaba indhala yahay oo waxba ma arko. Wuxuu igu dhahay, wiilkaygiiyow, fadlan waxaan kaa codsanayaa shay. Wiilkaygiiyow, waxaan kaa codsanayaa shay. Waxaan dhahay, i amar adeer, waan ku adeecayaa, i weydiiso adeer. Wuxuu i dhahay, fadlan wiilkaygiiyow, Ilaahay ayaan ku dhaartay 3 bari ayaa ii sugnaatay. Gaajo ayaa i dilaysa. Waxna ma cunin, waxna ma cabin. Waxaan ku iri acuudu billaah. Waxaan dhahay isbitaalkana. Wuxuu igu dhahay, wiilkaygiiyow, ma doonayo cuntadooda, abitaydo ma hayo. Waxaan u sheegay, maxaa rabtaa adeer? Waxaan iri, adeer iga codso wax kasta oo aad jeceshahay. Wuxuu igu dhahay, wiilkaygiiyow, haddii aad haysid 1 riyaal, aad dukaanka cuntada lagu gado oo ii soo gad rooti. Waxaan rabo waa intaas kaliya, rooti ayaan rabaa. Walaalayaal, waan aaday, waan ka tagay isbitaalkii. Waxaan u soo gaday rooti, biyo, cabitaan iyo cunto. Waan u imid, waan siiyey. Wuxuu qaatay rootigii jab ka mida. Markii uu cunay, waa i soo fiiriyey, waana i dhoolla cadeeyey. Wuxuu i dhahay, Ilaahay ha ka abaalmariyo. Waxaan dhahay, adeer, waxaan ku weydiinayaa su'aal adigoo raaliya. Isbitaalka ayaa joogtaa, miyaadan lahayn carruur, miyaadan lahayn gabdho? Xabaar ayuu hoos u dhigay madaxiisa, kadibna kor ayuu u qaaday. Wuxuu i dhahay, wiilkaygiiyow, haa, waan leeyahay carruur. Ilaahay ayaan ku dhaaranayaa, waxaan leeyahay 10 carruur ah. Subxaanallah, 10 carruur ah. Haa, wiilkaygiiyow, laakiin way koreen, wayna guursadeen. Mid kasta wuxuu aaday xaaskiisa, waana i hilmaamay. Waxayna iiga tageen guriga. Ilaahay ayaan ku dhaaranayaa, markuu xagaagu yimaado, qabow ayaa i dila. Waan u yeeraa, laakiin qof i yimaada ma lahan. Maalin maalmaha ka mida, kii ugu naxariista badnaa carruurtayda ayaa ii yimid. Waa kii ugu naxariista badnaa. Wuxuu i dhahay, aabe, hee wiilkaygiiyow, Ilaahay ayaan ku dhaartay, waxaan u maleeyay inuu dhihi doono, kaalay nala seexo annaga. Waxaan u maleeyay inuu dhihi doono, aabe, waxaan kuu sameeyey qol aad ku nasatid oo aad joogtid, kana wanaagsan kan aad joogtid oo qabowgu kugu dilay. Wuxuu i dhahay, aabe, waxaan aadaynaa meel ku wanaagsan oo aad ku nasatid, annaguna ku nasanayno. Waxaan ku dhahay, wiilkaygiiyow, aan aadno meeshaas, Ilaahay ha ka abaalmariye. Wuxuu i dhahay, waa indhala ahay, waxna uma jeedo. Waa i qaaday, wuxuuna i dhahay, waraaqdan qabso, halkan fadhiiso ilaa qof kaaga yimaado. Aabbihii wuxuu dhahay, maxay tahay tan wiilkaygiiyow? Wuxuu i dhahay, aabe, fadhiiso halkan, waa isbitaalka dadka waaweyn. Laga yaabay inay ku xanaaneeyaan, maxaa yeelay annaga fursad aan kugu xanaanayno ma haysanno. Wuxuu dhahay, 90 sano jir ayaan ahay. Wuxuu bilaabay inuu ooyo. Wuxuu dhahay, kama filanayn in ay maalin igu tuurayaan isbitaal. Ma filanayn in ay iiga dhex tagayaan isbitaal. Shalaytadaydii maxaan u dhalay ciyaal? Waxaan ku dhahay, adeer, qof ka mida ma ku soo booqday? Meeqaa joogtay isbitaalka? Wuxuu i dhahay, waxaan joogay 2 sano. Haye, qof ma ku soo booqday? Wuxuu i dhahay, 2 sano, qof xitaa albaabkayga soo garaacay ma jiro. Qof xataa albaabkayga soo garaacay ma jiro. Xitaa qof albaabkayga soo garaacay ma jiro. Wuxuu i dhahay, laakiin maxay tahay sidaas? Waxaan idhi, adeerow, u ducee ayaga inuu Ilaahay soo celiyo oo soo hanuuniyo. Wuxuu i dhahay, maya wiilkaygiiyow. Gacmihiisa kor ayuu u qaaday. Ilaahay ayaan ku dhaartay inaanan ka tegaynin maalinta qiyaame. Ilaahay ayaan ku dhaartay, Ilaahay hortiisa ayaan istaagayaa anigoo la doodaya ayaga. Ilaahay ayaan ku dhaartay, Ilaahay ayaan ku dhaartay, waana hor istaagayaa maalinta qiyaamo, waana la doodayaa ayaga. See uga tageen aabbahood kii ku daalay korintooda? See uga tageen aabbahood kii markay yaraayeen aan seexan jirin ilaa ay seexdaan? See uga tageen aabbahood? Way ka tageen 2 sano ayagoon xaalkiisa ogeyn. Kadib way ku raaxaysanayaan naagahooda. Ilaahay ayaan ku dhaartay, uma ogolaanayo inay ka tagaan maalinta qiyaamo. Uma ogolaanayo inay ka tagaan Ilaahay hortiisa xaakim badanaha.
masaakiin waxay u malaynayaan inay raaxaysanayaan hadda. Kadib wuxuu bilaabay inuu ooyo. Waxaan iri maya adeer ha ooyin. Waxaan dhahay adeerow ilaahay u bari inuu ilaahay u aqbalaa laga yaabaa. Wuxuu dhahay yaa rabbi ilaahow ha u ogolaan in ay farxad dareemaan maanta iyo maalinta aakhiro. Waan fiirshay walaalayaal wuu ooyayaa. Waxaan ku iri adeerow naftaada nasi. Wuxuu i dhahay wiilkaygiyow 10 carruur ah oo aan ku jirin mid khayr qaba ah 10 carruur ah oo aan mid khayr qaba aan ku jirin. Waan ka tegay walaalayaal anigoo ooyaya. Waan ka baxay isbitaalka anigoo ooyaya. Markay tagtay bil 2 bilood ama 3 bilood midkood kadib ayaan soo xasuustay maalin. Waan tagay si aan u soo ogaado akhbaartiisa ninkaas. Waxaan soo galay isbitaalkii. Waxaan dadka weydiiyey asaga. Waxaan helay qolkii. Waan fiiriyey mise sariirtii waa eber. Waxaan weydiiyey dhakhtarkii. Waxaan iri dhakhtar meeyey ninkii duqa ahaa oo halkan joogay. Wuxuu i dhahay ninkii weynaa oo halkan joogay bil ka hor ayuu dhintay. Wuxuu dhahay waa dhintay. Waxaan ku iri qof u yimid ma jiraa? Wuxuu i dhahay wuu dhintay, qof ogna ma jiro carruurtiisa. Waan wacnay waana u sheegnay aabihiin waa dhintay. Dhakhtarkii wuxuu dhahay aabihiin waa dhintay. Waxay dhaheen hadda waa mashquulsannahay, dhaqa karfaneeye oo xabaala. Dad badan ayaa u maleeya markii ay u qaadaan aabahood isbitaalada xanaanada waxay u malaynayaan inay tahay mid ka mid ah baarin noqoshadiisa. Rasuulku wuxuu dhahay jannada ma gelayo qof waalid caasi ah. Jannada ma gelayo qof caaq ku ah waalidkiis. لا يدخل الجنة عاق. كم من شاب عاق لوالديه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.